ganacsiga ula lahaa waddanka India. markii uu arkay damcii reer Yurub ayaa boqorkii Itoobiya ka talinay waqtigaas Menelik waxa waraaqu uu qoray dalka awoodda lahaa waqtigaasi jiray sanadkii 1891 warqadaasi waxa uu ku yiri Itoobiya muddo 14 qarni ah ayaa waxay ahayd jasiirad ku dhex taala dad cawaana haddii wadamo meel fog ka yimi ay u yimaadeen inay Afrika iyagu qaybsadaan kuma tala jiro in aan noqdo ruux daawanaya oo aan dan ka lahayn. sanadku markuu 1879 ayay Itoobiya iyo Ingiriisku waxay wada galeen heshiis tusmeynaya sida ay u kala leeyihiin dhulka Soomaalida. hase ahaatee Soomaalidu waxay u ogaatay waxa dhacay 30 sannadood kadib. hase yeeshee haddii aynu ku soo dhawaano qarnigan dhammaaday waxa Soomaalida uu bilaabmay iyada oo la gumaysto. 20 sannadood ee qarniga ugu horeeyay halgankii ugu weynaa ee koor yimid waxa uu ahaa kii daraawiishta ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan. 17 bishii Abriil sanadkii 1903 sagaal sarkaal iyo 189 askari oo kale ayaa Ingiriiska laga dilay. taasoo waxay keentay in Ingiriisku uu bedelo istiraatiijiyadiisa. horraantii 1912 ayuu Ingiriisku ka war helay in daraawiishtu degtay marinadii ganacsi ee Berbera dhinaca bariga ka soo gali jiray isaga oo diidan inay joogsadaan isu socodka ganacsi ee Burca iyo Berbera ayuuna abaabulay hirgeliyay ciidamadii SCC ee Somali Camel Constabulary kuwaasoo mar dambena loo bixiyay Somali Camel Corps. ciidamada rukuubleyda waxaa madax looga dhigay Dhamme Richard Cofield. saraakiisha tababarada bixinayana waxay ahaayeen British. muuqaal codaysan oo la duubay xilli tababar la siinayay rukuubleyda ayaa lagu sheegay in askarta rukuubleydu ay ahaayeen Soomaali. They have British officers, but their NCOs are Somalis. All are excellent marksmen. And although there are not many camel corps now in existence, they are particularly suited to this type of country. Am I boring you? horraantii bishii Agosto ee sanadkii 1913 daraawiishtu waxay duulaan ku qaadeen ceelka Burco. halkaas oo ay rabeen inay soo ceshadaan hanti hadyad ah oo daraawiishta laga soo dhacay. Dhamme Cofield oo raadinaya fursad dagaal oo daraawiishta ay isku arkaan ayaa weerarka daraawiishtu ay soo qaaday u arkay meertixilliye dahabiya oo uu ku tabcayn karo abaanduulayaasha iyo dubcada daraawiishta. Cofield wuxuu soo dumay ciidamo lixaad leh oo ay ka dhex muuqdaan ciidamadiisii rukuubleyda. waa barigii 9 bishii Agosto ee sanadkii 1913 ayay daraawiishtu dareersadeen xoolihii ay soo qaadeen ee ay ku soo magdhawdeen hantidii laga soo dhacay. iyaga oo ka war hayeen qabaa'ilka deegaanka iyo Ingiriiskuba ay soo raaceen oo ku soo raad joogaan ayayna daraawiishtu isqaybiyeen oo noqdeen gaar hore iyo heega dambe. bishii August sanadkii 1913 dagaalka ba'an ee ka dhacay meesha la yiraahdo Dulmadoobe oo bariga magaalada Burca ka xiga ayaa lagu dilay ninkaasi la oran jiray Richard Cofield. 1913, its commander, Captain Richard Cofield, disobeys orders and leads an attack against the dervishes. Cofield is killed. His forces annihilated. Sayyid Muhammad commemorated the dervish victory with a poem. Sayyid Maxamed Cabdulla Xasan gabaydeer ayuu ka tiriyay geerida Cofield. adiga jidkii lagugu waday jimiclaanede jahanamu la geeyo wadaakhiru jahan جميعينكي وحتى توهبتي أرنتو إنكي جنوك عيور بيتشر الإسالي ولوئي باهي كوتي بابي مرجا ورداء تلاوي استقلال مقامت دين تاني وجرتي ده سلطان غير ربي كور برغة أحمد وجدي جنده حتى استقراري تركين لقى الجنريات أنا جبريل عشري شري جهتي وجيدا في طيبة ساقي جدا
waxaa daba sii socday dagaaladii dhex yaalay dowladda ingiriiska iyo sayidka iyo daraawiishtiisii sayidka waxaa qalcadiisa ugu adag ahayd degmada la ydhahdo taleex waxaa ingiriisku deetana halkaasu ka saaray markii dayuurada uu ku garaacay deetana sayidka iyo wixii ka haray daraawiishtiisii waxay u gudbeen dhulka soomaalida ee ka tirsan dalka etoobiya sayidku markii laga adkaaday waxa uu tiri haddaba gabay dheer oo dardaarana oo dadka soomaalida ah uu kula hadlayo